waxaa xilligan sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo qudaarta noocyadeeda kala duwan taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka sida maalinlaha u isticmaala qaybo badan oo ka mid ah suuqyada ayaan oolin qudaartii loo baahnaa taasoo ay ganacsatada iibisa ku sheegeen sababo kala duwan Madiine Maxamed oo ka mid ah dadka iibsada qudaarta ayaa sheegtay dhibaatada ay ku qabtay sare u kac xilligan ku yimid qudaarta qiimaha hadda la yasiyo qiimihiisa aad u kululaya waxaa ka mid ah liin dhanaanta bisbaaska kamsar caleenta yaa bashasha kulli waa wada qaal hadda laakiin wixii dhan qaalay noqdeen ma oga sida wax u jiraan waa ka soo waay babaayga qaalo wixii dhan qara qaal waaye wax dhan kulli wada qaalayo yaayadana idin wax yar la gadaa wax yar 5 kun la gadaa oo waliba xisaabtamayso oo 10 xabba ah qasacad yaayada $5 la gadaa wixii dhan qudaarta dhan wada qaali waaye ilaahay hanoo soo gargaar kabsartana waxa la gadaa $1 ugu yar kun shilin oo waxa lagu soo qaadi jiray 4 bar 3 bar waxa ku dhaqmaysa lagu soo qaadi jiray laakiin hadda maya aalintan awjadii yarista xabadii kun waatan kunana laga gado intan kun oo walna rubac kun ay ahayd marka mashaakilkaas aan haysto Saciid Cumar wuxuu in muddo ka ganacsanayaa qudaarta wuxuu dhankiisa ka hadlayaa qiimaha la iibinayo noocyada kala duwan ee qudaarta wallahi qudaarta qiimaha hadda oo waxay maray oo ugu dambeeyay oo sarakac zaid ah hadeertaan kulay xilliga lagu jiro waa dareemi kartaa waa xilli roobayd qudaartina waxay maray aad u kacsan tahay مثلا waxa hadda zaid noogu daran kamsarta koostada iyo ansalaatada maadaama awal maas anaga kamsar aan ku soo qaadan jirnay $1 iyo 5 sent inta u dhaxaysa haddana maanta anaga aan ku soo qaadano maas kamsar $35 ilaa $40 sidoo kale koostada maaskeeda maanta waxaan ku soo qaadnaa $5 awalna waxaan ku soo qaadi jirnay maas koosta 10 kun iyo 15 kun awal ku soo qaadi jirnay ansalaatada hadeertaan waxay maraysaa kiiladeedii $8 ilaa iyo $6 inta u dhaxaysa awalna kiilada waxa la gadi jiray 20 kun 30 kun $2 wax la eg misbaaska oo kale barbarooniga oo kale kiilo barbarooniga awal waxa lagu soo qaadi jiray 20 kun 25 kun hadda kiilo barbarooniga $4 waaye sidoo kale bisbaaska kiiladiis hadda $4 ilaa iyo $5 oo u dhaxeeya awalna bisbaas lacag ma oo soo joogi jirinba tan ganyaayada marka la soo qaata kor loogu soo shubi jiray isagoo free camal ah sidoo kale tan ganyaaya hadda waxay maraysaa $600 ilaa iyo $800 lacag awalna tan ganyaaya waxa lagu soo qaadi jiray $100 kun 80 kun sare u kac kasta oo ku yimaada qiimaha la iibiyo qudaarta waxaa jirta sabab ka dambaysa arintaasi waa kan Saciid oo inoo sheegaya dadkana waxay hadda ay leeyihiin waxa keenay sare u kacan ay hadda adiga ay sheegaan waxay tahay inay tahay xilli roobeedka dalagii hadda soo go'i lahay biya qaaday oo dalagii hadda oo la rabi lahay in la cuno oo dadka ay isticmaalaan biya qaaday marka heer hadda waxaan mareynaa kamsarta inaan ka keensano dibadda oo maas kamsar nalga sii $35 ilaa iyo $30 marka qudaarta xaaladeeda waa saas waxa keenayo dalagii hadda anaga aan isticmaali lahayn inuu soo go'in ay jirto marka baahi weyn baahi qudaareed inay jirto sidaas la ajligeeda looga keenaa dibadda qudaartina kulay waa masti lagama maarmo kamsarta maanta waxa waay faristawan maanta badarka wixii lagu carfin lahaa kamsar la'aan waxa u maleynaa inay tumarka karsan karin badarka kamsar la'aan marka waxa masti kamsar in la helo marka sidaas la ajligeeda looga keenaa dibadda xilliyadan oo kale marka la dareemo sare u kac dhanka qudaarta ah waxay saameynta ugu weyn ku yeelataa dadka danta yar oo ah kuwa aan awoodin isbeddelka qiimo ee ku yimaada qudaarta moodalkii elektaroonig ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyey oo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo TCL Electronics u muraad oo marnaba ha moogaan faranjiyeero mug weyn iyo qasaaladihii la mahdiyo marna aan laga maarmin kuu karko ka sii mudan waxaa ka maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo TCL Electronics u muraad oo marnaba ha moogaan
shirkadaha macquul iyo TCL Electronics waxyaabaha aad ka helayso waxa kamid ah mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida TBB iyo TCL oo ah kuwa safe energy waqti badan ku haynaya waxaad kale oo shirkadaha ka helaysaa faranjeerada Supernational iyo TCL noocyadooda kala duwan tayadoodana la isku haleyn karo sidoo kale shirkadaha macquul iyo TCL Electronics waxay ku diyaariyeen qasaaladihii ugu dambeeyay oo casri ah isaguna jira Supernational iyo TCL waana kuwa automatic iyo manual ah waxaa intaasi dheer kuukarada Supernational oo ka kooban yar iyo waaweyn iyo waliba dhalooyinka TV-yada oo kala jaad ah shirkadaha macquul iyo TCL Electronics waxay ku yaalaan suuqa weyn ee Bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahinta dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda قم بنا وانظر لآيات الجمال